waxay noqotay madaxweynihii ugu horreeyay ee dumara ee qofkii ugu horreeyay ee Yahuudda Mexico ah oo loo doortay xilka madaxweynaha dalkaasi Mexico. Claudia Sheinbaum ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalka Mexico kadib markii ay ku guuleysatay doorashadii ka dhacday dalkaasi. Rayi aruurin ay samaysay xarunta Parametria ayaa muujisay in Sheinbaum ay doorashada ka heli doonto codad dhan 56%. musharaxa xisbiga mucaaradka Xochitl Gálvez ayaa heshay 30%. waxay noqotay madaxweynihii ugu horreeyay ee dumara ee qofkii ugu horreeyay ee Yahuudda Mexico ah oo loo doortay xilka madaxweynaha dalkaasi Mexico. kaliya 50,000 oo Yahuuda ayaa ku nool Mexico, kuwaasoo ka mid ah 130 milyan ay ka kooban yihiin guud ahaan dadka Mexico. laakiin guusheeda waxay albaab u noqon kartaa xubno badan oo Yahuuda inay qabtaan xilal sare. Sheinbaum waxay siyaasadda soo gashay iyadoo da'yar markii ugu horreysay sanadkii 2000 waxay shaqo ka gashay xafiiska duqa magaalada Mexico City ilaa ay markii dambe isla kursigaasi la wareegtay oo loo doortay duqa caasimadda Mexico. waxay shahaadada PhD ka qaadatay injineernimada tamarta iyadoo 33 sano jir ah. markay diyaarinaysay qoraalkeeda PhD-ga waxay waqti ku qaadatay jaamacadda California Berkeley ee dalka Mareykanka. haddii ay ku guuleysatay xilka madaxweynaha waa 61 sano jir. Sheinbaum waxay xilka kala wareegaysaa madaxweyne Andrés Manuel López Obrador oo loo yaqaano AMLO oo asaasay xisbiga Morena. xilligii ay ku guda jirtay ololaheeda, Sheinbaum waxay ballan qaaday inay hore u wadi doonto dhammaan xeerarkii kala duwanaa iyo mashaariicdii madaxweynaha ka horreeyay muddada 6 sano ee xafiiska joogto. López Obrador ayaa xafiiska ka tegaya bisha Sebtembar sanadkan isagoo ah mid ka mid ah hogaamiyaasha adduunka ugu caansan oo maanta xafiiska joogo. dhanka qiimayntiisa ogolaanshaha ayaa si joogto ah waxa ugu sarreysaa 60%, iyadoo wakaaladda sahminta Morning Consult ay ku qiimaysay inay ka sarreeyaan kaliya 2 hogaamiye, Narendra Modi ee dalka Hindiya iyo Javier Milei ee dalka Argentina marka loo eego caannimada. dhanka rikoorkiisa shaqada waxaa ka mid ah horumarinta iyo ballaarinta barnaamijyada bulshada ee danyarta, balse López waxa uu sidoo kale caawiyey hindisayaal muran dhaliyey oo ay ku jiraan ballaarinta waajibaadka militariga iyo la shaqaynta Mareykanka si loo xakameeyo socdaalka waqooyiga.